kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilhaanti ma meel kasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhalinyarada oo toddobaadkana idinka imanaya magaalada Nairobi. daawadayaal toddobaadkii hore barnaamijka waxaan ku soo qaadanay hablaha Soomaaliyeed dookhoda iyo qofkii ay jeclaan lahaayeen inay nolosha la wadaagaan. toddobaadkana waa barnaamijkii oo kaba sii xiiso badan inamadii Soomaaliyeed oo iyagana si yaab leh uga hadlay dookhoda kuna dalbaday qofkii ay jeclaan lahaayeen inay nolosha la wadaagaan. ayaamaha waxay igu soo dhacayay fariimo aad u fara badan oo ay soo dirayeen asxaab dhalinyaro ah oo iyagana ku kala nool caalamka oo iyagoo emailada iyo telefoonada iyo intiba ay igu soo dhacayeen ay ahayd iglanay waxa soo bandhigtay hablihii Soomaaliyeed dookhoodii habluhu laftirkoodana waxay igu lahaayeen waxaad inamadii dookhoodii baad qarisay oo anagii u badan soo bandhigtay inamadina waxay leeyihiin dookhayga ayaad iglanay xaq hoose dhigtayo kii hablaha u bata oo caalam walaysinaysa marka bal waxaan rabaa inama Soomaaliyeed oo ay ku nool magaalada Nairobi aan wax ka weydiiyay dookhoda daawasho wanaagsan magacayga maxamed aan dhahaa ani asxaabta oo isli ku nool kamid ah marka hadaa ka hadlo dookhaygaani dookhayga hortu fara badan yaani adigu dadka wax badan baa badan kay fara badan laakiin inkastoo laakiin sanadkan gabdhaha ay sheegeen 6 packs laakiin ani gabar 6 packs la rabaa kabar kale ma bakaad may waad ka tirna mixes packs la alhayna taas jima geena oo u yeela habeenkii tirina sina ani waxay ya taa dilwaaya taas dilwaaya mid catal raadina horta ku soo dhaw Kalsan TV ma santahay inagoo sir joog baan ku kulanay inagoo adoo socdo garfoon sitay anoo hawlahayga wataa ka ku soo dhaw waxa artiin ay weydiiso waxaan rabaa inaan ku weydiiyo حاس ما لها هاي مسوي حتى يسنقل ما نقان قاعدين بي يا دانا من شيء ما نقان قاعد هذا قول ما نقان قاعدين دي هذا حتى شن يطور فريتون ما نقان قاعد أفريتون يا شن يطور وقان قاعد شو تو وقان قاعد ويا ما نقان قاعد ميل بنك سعودي ولا عليه إن إيه توخاك قف معنا قف قبره مقبر بندل بضاع بسم الله ها قبر بندل بنا يا حوي وقبل ورت مدو تمايق وياك أو قابن أو لقى دوبان أو قارك سروين تموت ومركز سعطان وصعن مركز سعطان سقبر سعطان مرة وأنا أقول له ولا سكين تك موت تاس وحنا قبل سعطان إنكري تعال وحنا روا كذا أنت وحنا روا gabadhan hooyo lahayn oo aabba lahayn oo adeer lahayn oo awow lahayn oo inaad lahayn oo gidaarada seexato gabigeeda marka aniga ay hesho tira ya adigu way rabtaa idagayso waxaan rabaa gabadhan hooyo lahayn oo aabba lahayn oo adeer lahayn oo inaad adeer lahayn oo gidaarada seexato marka aniga ay hesho noloshu bilaawanto tira iga ruuxa noloshana miyay jirtay halkee baad adigu ku dhalatay hooyada iyo aabbaha man jecelahay ma raba nolol bad in aniga iga bilowdaan rabaa gabigeedu waxba ay soo arago nolol baan aniga ka bilowdo aniga iga bilowdo walaal wiish ma weydiisana iga rabaan iyagu walaal weyd aan ku bilaabado magaca ku bilaabaya magacay waxa la naawna macaysan halka Nairobi la Norway magacaygu soo magacay waxa la naawna macaysan halka Nairobi la Norway way xabad ka warta dog sheeg waxa la naaw ni macaysan halka Nairobi la Norway aniga roor ku tagay أبيت كتاب حبيبي سؤال عقبته. أضبط محطتي مقع قرحية كوبحي مقع. يا ما على تشسنا ليسو فكرة إلا عندنا فكر كده وعلى كده جرا. ولي مقع مهير قلاي. مقع وهير قلاد هذا وشخنا مقع وصلنا مقع وخبرة له واي. وحكوا فديها حتى قيمة عن لسيس كريم. وحنجعل هاي جور قال كم من قلاي أجاونا تجدونا الله. مركب حروا جور جدودن. هون قابن دحدنا ير هلا دم بيساقي هلا دم كسوعيس بس محاد كنت علاتك وداس يا وحكيت على دحدنا كهلي ما دانا على دحدنا دونات تلاكر دوناتو هلا دم بنات مركز سوعيس هلا دم لينك سعته كدب كور إلى قفك أنت سمعت شوقية حدي أي جب وضع بورنات كور يا حدي وضع بورنات قبل ذا إذا ما علق قصة إذا ما علق قصة معناها مركز بدن بين داونا يا في Soomaaliya قاري وحنا إن هذا سفي عنه قلت جنتي يا إن هذا في Soomaaliya قدرت كفهسيس برا إذا ما علق قصة معناه وحوا إذا ما بسكرافاب
oo gabiga bas ku ceydinaysa sasan ku dhaafaan marka waxaad leedahay iska tag baa adigu saan rabin baad noqon ilaan dooqay madana aweysna iska dhaafa fiican hore waxa loo yiri waxa loo baahan intii loo baahan lahaa wixii loo baahan yahay loo baada loo baahan yahay marka idaba oo iska jeedo أنا ما كجسا إلا وقت مجوكت حلي أنا سارة وين دحدة دكتورين أو إذا سارة وسعنين معي ترساني قروح ذا مقطع وحويان قروح ذا مقطع قروح ذا تذكرنا يقرنا يان من مذوبة مع عصا محوها هاي أو تكون دير كودا قادماها وقف كسيد إلى هيجو أبورتي الله قفور حين أو كو أبوري عن مارتي عسين يمذو وده حيويان تاجن ورنا دير تاي وكوي هران هروي هلا يكون هذا بان هايستي يكون هذا بان دونا يويان مركا قبلها سايان دونا يا جعل كي واسداس هذا نواه هايستا هران نواه يسمرين حتى مو حتى بموح بالصبح أنا سرق العلم وسرق العلم ما حد يقول جرابة محو هاي يعني قال كاسف كلا بحي وواو صوّد هذا تنواه هايستا تنواه صوّد وحكي بدل ما كمان بدلنا واسكو جعل كي اسمه بدلو واسكو نوعون وكوي هرون ومارتي كو هذا عصري إمامada way isbedelaan ama wiilasha aadan ama gabdhaha aadan waa la isbedelay mowqifkiyo iyo waxyaalaha horumar baa dhacay ama la yiraahdo ilbaxnimada ayaa dhacay marka aniga waxa weeye tii hore aan iska taaganahay oday Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeed deewanahay barnaamijkaas aad u fiican yahay in kastoo gabdhaha ay dalbadeen nimanka leh six bag laakiin anigu wali jimki waa wadaano six bag laakiin wali ma yeel imisaad haysaa wala diyaarintii ku jiraan intay ku qaadanaysaa wax yar bal adaa ku weydiinada anima qurxana mise fulxuma quruxda ani saa waqaan waa midda qalbiga anaga waxaan ka hadlaynaa ta la arko midda la arko Soomaan midda la ka habla weydiinayna qurux badan in kale kullu waan is fiiri la kuwa qurux badan waa ogaay marka kuwa qaabkada laato adiga qaabkada laato adiga hadda naftirkaada هاي الكعساتو يسمبورنان على اللي يجيلالي هذا راتو هذا حيراتو ويلكي أدايور كي ستوسع عداية هجاونا تمالك أنا هذا راتو أنا لكن لازم وين الكعستها وين بشمو وين تاي وين عدها that's it waxaan filayaa inay asxaab badri daawatay dooqa ay ka hadleen nimada waliba siyaab leh ay uga hadleen waa darkaysan inama badan lahaayeen wali exercise-ki baan wadnaa shaqaaba nagu socota dad badan bay hable u direen inama far badan bay hawl galiyeen oo shaqa culus u direen wali daawadeen waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dooqa iyo qofku wixii uu jeclaan lahaa inuu qofku nolosha la wadaagi lahaa wallahi ani waxaan jecelahay qofka inuu normal iska ahaado dhirkiisa uusan dheereen uusan gaabneen ilkahana inuu dabarka yeesho markuu qoslana in laga dareemo haarawa sidaad camal ma fahamtay marka de saasan jecelahay dooqeyga waa ka kalarkeedana waxaan jecelahay inay chocolate uu ahaado oo waxna ismarinaynin de cadaan iyo gaduud iyo cadaan madow midna ahaan chocolate badan baa macnaheedu mise waa qof aan iyo mayna quruxda waan jecelahay quruxda aad baa u jecel may de qurux oo dabeecadna la socoto adaabna ay leedahay jecelahay may hadii lagu qabsado ka waran ya taas quruxda badna waa la isku haystaa de midaan qofka haduu isku kalsoon yahay de waa kalsoonin meesha jirto waa isku qabsasho ma imaan karto Soomaan marka adiga waxa leedahay waxay waa cadeysaan waxay cid ka doono ka tab ma igama daba imaan karo meelan jooga baaday muuqdo midabkaaga hormaraaye naftu muhato armi waydo muusanawdo ku dulmeerta malaha jacayl baaba ku yeelay hees baad nagu salaantay dabcan jacayl waa iska jiraa ya qof jacayl moog ma jiro marka adiga jacayl rasmi ah hadda ku hayo mise waa mid la raadin doono waa rasmi mid rasmi caadi waa waxaan rabaa inaan dooqaaga ku weydiiyo maadaama aad fanaanta hablo badan aad kulantaan oo marka malaha adigoo kale dooqaaba ka lumi karo sababta dad fanaan tahay marka israa'iil hees hablo oo dhan baa ku imanaya sax waa bas waxa waa gabadh horto waa inay dheer tahay ee cad tahay sankan oo dheer tahay dhaxdo yar tahay qaarkoodna u weyn tahay jeclaan ya midabkan cadaanka ay leedahay midab madow ma ka xanaaqdaa midab ma leeyahay madow mugta
واحد استعمل طبعا midacada dabcan maxay sig bas okay waa fiicanta wiilka inuu lahaado dhinaca loo leem dumarka ma jecla inta badan ma waa bala daldalaya bal ilka caloosha la walaalo laakiin calool ma lihi six baski maxaad ka intaad haysaa yawa intay dalbadeen ba waa marka adigu intiba waa tahay دوقي لكن هو مدبك شوكولاتك شوكولاتك سيفان سيفان هبلا أنا وحنجعل هاي إن سنديران إن سنقبن قصدًا دحدحدا وين دحدحدا سعود كذا نقول دقنان هذا معناه قبل أسوأ لا قينا من دونه إلى ما إن لوينا يا كم فوق ملها وقت حضر كان mid ugu horeysa point aan ka qaadanayo waxaan jeclaan lahaa gabar dooqeed haddii aan helaya gabar marka hore familygayga iyo dadkayga horta aniga iga jecel inta aniga wali gaarinba inta hadhow imaan lahaa isfurin iyo isjiid iyo balaayo in laga fiirsado mid xigto waxaan jeclaan lahaa gabar iska dhaxyar waxaan u leeyahay naagaha sanadkan joogto walba intay bye iyo wax baas isku buuxisiya markaad hor ka aroosana hor bay ka sii buurinaysaa markaas haddii xalfad u sii kacaysid waxaa lagu malan inay hooydaa tahay oo markaa wax buuran oo weyn ma rabtid naag buuran waayo aniga iga xaaraani naag buuran adiga ma dhuubnide aniga ma dhuubin laakiin xogaho yar oo asimanayniya sida hore mi aad mahadsan magacaygu waa Khadar Maxamed Daahir waxaan ku loonahay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii horta waxaan jeclahay horta midabkeenu waa hal hadaynu Soomaalinahay midabkeenu waa hal midabkay aan jeclahay oo gabar aan dhihi karo maanta wad ku jeclaan kartaa waa midabka marinka ma jecli gabar aad u cad ma jecli de horta sidiisaba cadaanku midna waa loo dhashaa midna waa la iska keenaa anigu waxaan jeclahay kan dhexdhexaadka waan jeclahay gabadhuna waxaan jeclahay inay ahaato gabar middle ah meel yani dhexdhexaad gabdhaha aadka u buuran ma jecli sababtoo ah gabdhaha aadka u buuran hadhow markaad guursatid gabadhii ay ilmo dhasho 2 ama 3 ay dhasho de waa iska sii ballaaranaysaa marka aday balaarto miyaad bedelaysaa oo waxaad oranaysaa mid kale aan keenay mise tigood iska gaxaysanaysaa balaarto de inta ma guursanin ka hor baan waxa yani aan ka fakarayaa haddii laakiin ay igu dhacdo aan guursado waxay noqonaysaa inaan bedelo haddii ay aad iyo aad u ballaarato waa iyadoo dhab dhaqaaq baan leeyahay soco wallaahi magacaygu cabdiqaadir shaqaad cusuble يعني دار حفظة كنا لكن مثلا إنك سوق دو سومالي أرو ديجرين مركي لو رسنين عاد عشان ديجنا إنه نكرجع وإنه 6 باك لا أنا قبل 6 باك وحجي ما تطلعت كورة وحققت برنامج اللي هلا أرنتاز رجع وحليكي عن 6 باك الهاي ويسكت جيا خرج بدن بالوق وسكوية ولا أنا قبل لفتو أنا قاعد كنا 6 باك سوا حس لكن أمالي ما قبر أنت سومالي جيم سوق 6 باك وسمن سنس لكن مركي أنا قبر أنا هان دوقي أنك لا هرتا أدم إذا جعله ويجرته دوق أنت كراع كرون كراع قرحنته درته عدها جرو قبر وحن جعله تو حد إني درس هذا اللهن إني وحير حد أي تاي إني ميدب كسومالي وبدن تاي أو شوكولات كاي تاي إني سهين قفوا حيابة اسمرينين أو يعوا أجر كذا نظيف وياه أنا دجاله إن قف دير عس إن قروح بدن سيد هذا عمل حد كل ضلمة تقف نوعاس يعني وحول بو إنها جعل دلالك قفل بو جعل يه مركا دلالك هاد كدورك إن كور هدي وكوسو بيج مقف قفول حمي إن مركا سمتمس ولا يا قف قفول كحن نفتر كيسة dhinac uu ku fiican yahay iska jirto ama xoogaa kaftankiisa ama sheekadiisa ama yani xagga firfircoonadiisa ama dabeecadda waa laga yaabaa yani qofkii noloshaada adiga ma taqaanaa markaas aad ku faraxsan tahay ama ku farxad geliya ama yani dadka inta badan waxay jecel yihiin wax dhalaalayo ama qurux badan qof walba markuu arko wax qurux badan wuu jecel yahay laakiin maxaa ka dambeeya ma oranayo waa hagaag daawadayaal aynu intaasi kaga gudubno dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida cajiibka ay uga hadleen dookooda haddana waxaan jeclaan lahaa inaynu jaleecno bal culimada Soomaaliyeed iyo waxa iyaguna arintaas ka yiraahdeen haddaba waa kan Sheekh Cabdirasaaq Xaashi oo ka hadlaya mowduuc ku saabsan qofku inuu dookhisa dalban karo mowduucaas marka
laba qaybood baan igu qaybsamaa qayb insha Allah maanta aan ka hadlaynaa oo waxa weeye haddaad nin tahay raba inuu guursado mar baan waxaan yidhi mawduuc saas oo kale aan ka hadlayay guurka ama mawduucan wuxuu khuseeyaa dhallinyarada odayaashii baa xanaaqo waxay dhahay annaga maxaad nooga reebaysaa marka qof kasta oo guur raadinaya ayuu mawduucan khuseeyaa weliba khaas ahaan wuxuu khuseeyaa ninka raba inuu guursado gabadha uu dooran lahaa iyo tilmaamihii uu ku dooran lahaa mawduuca waxaad halkaas ka dareemaysaan mawduucani inta badan wuxuu ka hadlayaa dumarka sababtoo ninkii baa lala talinayaa marka waxaa dhici karta dumarku maanta inay dhahaan maxaadarooyinka annaga ay nagu jiifaane maxaadarooyinka dhinaca loogu badiyey laakiin insha Allah berrina dumarkaa lala talin doonaa raggaa laga hadli doonaa marka insha Allah berri wixii aad maanta dumarka ka maqashaan oo kale raggaad berri insha Allah ka maqli doontaan waxaan insha Allah muxaadaradan u qaybiyey dhowr qaybood hordhac ama muqaddimo iyo insha Allah sifooyinka aad gabadhaad guursanayso ku dooranaysid iyo tilmaamo yaryar oo ku saabsan dumarka qayb ka mid ah oo lagu leeyahay iska ilaali ha guursanin kuwaas ikhwaani waxaad ogtihiin xadiid صحيح أو ابن ماجه هي حاكم أي وريين وحديث عائشة أي النبي عليه صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم وحد الدور قادتان أو دورتان ماشى عاد نطفض هذا نطفض وشهوة المه كاسم اسمه مركب معناه حديثك وحوي جور كاجا مركب جور سنة يسيد dooro qof wanaagsan qof ku qalma guurso adiga gabadhaada ama qofkaad mas'uulka ka tahayna qof u qalma u guuri waxaad ogtiin ikhwaani waaqica markaan fiirino waxyaabaha qofka soo wajaha oo ugu badan ugu adag ugu dhibta badan waa siduu ku dooran lahaa qofka u guursanayo waxay taas tusaale ahaan la mid tahay qofku markuu diyaaradda raacayo marka diyaaradda raacayo oo hawada ay gasho laba wax baa qalbigaaga ku soo noqnoqda marka koobaad meesha aad u socotay haddii weliba dad aad jeceshahay kaa joogaan adoo gaaray oo ku nastay iyo sidii lagu soo dhaweeyay waad ku fakaraysaa qofku gurigiisa isagoo tagay meeshuu ku socday dhinaca kalena qofkii wuxuu ku fakarayaa khatarta diyaaraddan ka imaan karta iyadoo dhacday iyadoo burburtay isagoo dhib ku dhacay yuu ka fakarayaa marka qofkii wuxuu ku jiraa farax iyo rajo iyo cabsi uu u dhaxeeyaa wakadalika azawaaj guurka qofku markuu guursanayo dhinac wuxuu ka fakarayaa isagoo gabar fiican oo wanaagsan helay oo ku degay oo ciyaal baariyaala ay u dhashay oo faraxsan dhinaca kalena wuxuu ka fakarayaa naagta uu guursado hadday ku xumaato say arrintu noqon doontaa buu ku fakarayaa walaa shaka ikhwaani arrintaasi dadka dhallinyarada waqti badan bay ka qaadataa weliba waddamadan hadda aan joogno dhallinyaradu waxay u badan yihiin waana waxyaabaha mawduucan inta badan uu ka hadli doono inuu ninku naag raadiyo oo uu dhaho dumarkii oo dhan waa ay qancin waayeen kan maraykan jooga wuxuu aadayaa yurub wuxuu leeyahay xagga gabdho fiican joogaan ka yurub jooga wuxuu imaanayaa maraykan xagga gabdho fiican joogaan ama Soomaaliya la aadaya xagga gabdho fiican joogaan midka jooga Boston Minneapolis uu naag u soo raadsanaya kan Minneapolis joogana Boston uu naag raadsanaya wala isdaba maraya nin walba naag uu raadinaya waxa xasuustay nin bari waxa nin baa hadlay oo wuxuu yiri Soomaaliyu show gees kasta uu tagay soo hadalka ku suureynay markaasuu wuxuu leeyahay badda xamar magaalada Fiiriyabal waa xeebihii Soomaaliya badda xamar magaalada Berbera tan iyo Buuhoodle waa dhinaca kale bali dhiig waa dhinaca kale iyadana magaalada Burciya tan iyo Baar dheer waa dhinaca kale intaasaan bilaad marahayoon dumarka baaraay inta naag raadinaya intaasaan bilaad marahayoon dumarka baandhay soo u waday wuxuu ku soo gabagabeynayaa isu gaadhay gabadhan haba meel ma go'an fiiri midaan isdhaho midaan gursada meel baa ka khaldan tahay
وهاجاك داوديان waxaan filayaa asxaab aad u fara badan inay barnaamijkan ka heli doonto ama markay daawadana ay jawaab ka soo celin doonaan barnaamijkana kuma koobna intan oo kaliya ee wali uu sii socdaayo dooqiyo fara badan ayaa inoo dhiman oo dhanka hablaha iyo dhanka inamadaba barnaamijka waxaad la socodsiinaysay anigoo Iglan Saalax Cali waxaan u mahadcelinayaa Cabdi Xakiin Siciid oo isagana dhanka kamarada barnaamijku wuxuu idinka imanayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya intaynu ku kulmayno barnaamijka kan lamidana waxaan iskaga tagayaa sida iyo أمان الله.